bismillaahi raxmaani raxiim anigoo ah faysal cabdulaahi xaaji cabdi kuna magac dheer suxuufi abrone ahna afhayeenka Owl State ee wadanka UK ama Ingiriiska ayaa waxaan doonayaa inaan arrin ka yara yiraahdo hadalladii xajiimisnaa ee ka soo yeeray muqawadiinta ama dilaaliinta reer Hargeysa run ahaantii gaf ayay ku noqonaysaa afka Soomaaliga inaynu dadka halka ka hadlay aynu ku tilmaano odayaal ama salaadiin ama cuqaal waxaanu ognahay gardarrada qaawan ee garabka haysata ee habeen iyo maalin ka soo yeeraysa magaalada Hargeysa hadaynu nahay shacabka ku dhaqan gobolada Owl State of Somalia waxa la yiri ruwa la tag bartay baa la yiri kadig waa ku ceeb waxaynu ogsoonahay ragga ka hadlaya magaalada Hargeysa iyo nawaaxigeeda waa raggii aynu ogeyn ee ka dambeeyay dhibaatooyinkii dhulboobka ahaa ee loo geystay shacabka reer Owl State ee ku dhaqan magaalooyinka waaweyn sida Gabiley, Kalabayd, Wajaale, Arabsiyo, Hargeysa qudheeda iyo meelo kale oo badan waxaynu ognahay in aanu muwaadiniin badan oo dhulka u dhashay aanu ku laanahay dhiigoodii iyo hantidoodii oo la xalaalistay dadweynaha dhageysanaya ee sharafta badan leh ee ku dhaqan dhulweynaha Owl State walaalayaal waxaan idin sheegayaa waxa jirta arrin ah in aynu ka foojignaano ama aynu ogaano oo aynu dareen dheer u yeelano waxaynu ognahay goor waliba oo waxa xaaraanta ee lagu tilmaamo doorashada ay ka soo cusboonaadaan deegaanada aynu degannahay ama jaarka aynu nahay in ay dhacdo dhulboob loo geysto shacbigeena ama la baneysto dhiiga muwaadiniinta reer Owl State waa wax soo taagan soona jiray jirina doona hadaanan la helin si looga hortago ama aan la helin falkii laga hortagi lahaa waxa jirta oo aan meesha ka bannayn hadallada dilqaafka ah ee lagu xajiimeynayo ummadda sharafta ee ehlu cilmiga ee ehlu karaamada ah ee qoomiyadda Gadabursi waxaanu leenahay waa mid loo baahan yahay in aan jawaab laga bixin balse ay laga baxsho mid ficil ku dheehan waxaan mid oranayaa dhalinyarta u dhalatay deegaanadaasi ama dibad ha joogaan ama gudaha ha joogaan midna waxaan oranayaa odayaasha adeeradeena ama salaadiinta midna waxaan oranayaa beelweynta geesiyaasha ee sharafta mudan ee Bahabar Muuse ee Ilaahay ka soko uu dajiyay min lughayo ilaa iyo meesha la yiraahdo Saylac tan dhalinyarta waxa weeyaan walaalayaal hadaynu dhalinyartii dhulka u dhalatay waxa inagu ceeb ah oo inagu sharaf darro ah inaynu dhalinyarnimo sheegano waxaynu meel kaga dhacnay magacii dhalinyarnimada ma waxaynu doonaynaa in Suldaan Dawal iyo Suldaan Samatar iyo Suldaan Saleebaan inay hubka qaataan oo ina difaacaan oo annaguna aanu ku muusanowno magaalada Boorama iyo jaamacadaheeda oo habeenii maalin gidaarada la istaagno waa la xiray waa la jirdilay waa la masaafuriyay shaqo ma helo Somaliland baan ahay walaalayaal waa sharaf darro inaynu odayaasha adeeradeena ama salaadiinteena ah aynu ka sugno in ay ina difaacaan waar waxoogi waa inaga muruqi waa inaga taladii waa inaga mustaqbalka bari waa inaga taa waxaan leeyahay hadii uu jiro ama ay jiraan cid dhageysanaysa ee ku dhaqan wadanka gudihiisa ama dibadiisa in aynu sidaan si ka bedelno hadii kale magaca dhalinyarnimada aynu sheeganayno walaalayaal waa inaynu iska wareejino meel baynu kaga dhacnay gaf ayaynu nagu tahay inaynu dhalinyarnimo sheegano gunnimana aan ku noolaano oo habeen maalin aynu hoos u yeesno innagana la iskaayo tuso oo beelbeel la sukaayo tuso oo deegaan la sukaayo tuso oo wax aanan jirin iyo waxaynu dhaqan u lahayn aynan geyn inaynu ku meehanowno mid waxaan leeyahay odayada qiimaha badan leh adeeradaya ee salaadiinta leh ee cuqaasha leh ee aqoonyahanka leh waxa weeyaan Ilaahay ka soko dhulkaasi cidda maanta la weydiinayo waa idinka waxa tira Soomaalida gadba la tusaa muqawadiinta ama dilaaliinta Hargeysa ka soo hadla maalin walba waxa weeyaan ma ahan kuwa aad hadal u qoortaan waa wax aan dad aanan hadal loo qoorin ma jecli in aan ku noqdo marka aan leeyahay aan hadal loo qoorin sababtoo ah waxay ku hadleen hadallo ka saafan milgaha iyo sharafka afka Soomaaliga
hadalla ka saafan qiimaha qofka Soomaaliga uu leeyahay ama nuxurka afka Soomaaliga uu leeyahay hadalla laga saafay oo laga dhowray ayay ku hadleen marka ma ahan dad u qalma magaca ay sheeganayaan ama website-da ay ku soo qorteen in loogu yeero ta kale waxaan leeyahay beelweynta qiimaha badan leh ee Bahawar Muuse ee geesiyaasha ah waanu ognahay in aad dhulkiina difaacanaysaan balse waa inaad ka foojignaataan oo aad taxadar dheer ka yeelataan basaasiinta iyo nimanka awrkiraalayaasha iyo nimanka shilimaadka la siiyo ee u adooga cadowga bari iyo galbeedba jooga waa inaad ka foojignaataan waxay ku jiraan kuwa sheegta wasiirada ee beenaalayaasha waxay ku jiraan kuwa sheegta inay baarlamaanka ku jiraan oo beenta iyaguna isku maaweeliya iska ilaasha kuwa halka ka imanaya waxa weeyaan waxa liida qori iyo qiiqbo la tuuraa walaalayaal dadkayda kaga imanaya Hargeysa iyo nawaaxigeeda ee dhiigeeda la sheeganayo waa kuwa halka idin dhigay waa kuwa qoomiyadda halka dhigay waa kuwa shilmaadka nasiistay waa kuwa dhulkeena sandareerta yar ku badashay taana waxaan leeyahay ummadda qiimaha badan leh ee aan ogahay ee geesiyaasha inay dhulkooda naftooda u horayaan wax walba oo maanta uga baahataan waxa kale oo ballan ah oo maamulka Awdal State anoo ku hadlay afkooda ahna afayoonkooda wadanka UK aynu ognahay inaanu isla garab taagayno inayna taaganahay heel iyo hooba wixii aad inooga baahataan hadaynu nahay dhalinyartiina u heelan in ay garab istaagaan ta kale waxa kale oo jira oo meesha taagan hadii ay dhacday in maalin waliba la xalaalaysto dhiiga ummadda qiimaha badan leh ee Gadabursi ee meel walba ku dhaqan hadii la xalaalaystay dhaqankii ummadda in la baabi'iyo hadii la xalaalaystay maqaamkii iyo sharafkii iyo karaamadii iyo siyaasadii aynu lahayn in daaqada laga saaro waxaynu u baahannahay inaga gudahayna inaynu is eegno walaalayaal qoon ilaahay ma duleeyo ilaa iyaga is duleeyaan mooyane inaga is duleynay inaga is gumeynay inaga hoos isu eegayna inaga waxaan loo joogin ka sheekayna waa dhaqan ayay inoo noqotay xumaha inaynu u kala dheereyno wanagana aynu ka mashiiqsano dhaqan ayay noo noqotay runta ayaanu sheegaynaa waxaanu ognahay dad ay dhaqan u noqotay xumaanta tolkood inay ku soo guriya noqdaan inay lagu hagooyaan inay been ka sheegaan waxa ay ku hadlayaan maanta qoladan Hargeysa ka soo qayliyaysa waa waxaan inagu uu sheegnay waa ceeb aan inagu oo la tagnay waa wax aan inagu u waaridnay ma aha waxay la yimaadeen waayo ma kala garanayaan dadku iyagu dilaal muqawad huudeyle ma kala garanayaan qiimaha iyo sharafta ay ummadda Gadabursi ay ku leedahay geeska Afrika iyo ummadda Soomaaliyeed iyo caalamkaba kolka hadaynu inagu marka aanu isqiimeyn weyno oo aynu is indhabuuxin weyno waxaad ogaataan waxaan maanta aanu ka hadlayno wax ka xun inay dhici doonaan horay ayaanu uga hadalnay maqaalo ayaanu ka qornay warbaahinteenu gelinay war in laga foojignaado ninka awrkiraalaha ee 20 waji leh ee marna iska dhigaya inuu kula dhashay marna iska dhigaya inuu ku maqan yahay marna iska dhigaya inuu maaragtay oo hawl isaga uu gooni ah inuu ku maqan yahay walaalayaal horay baan u sheegay maqaal la yiraahdo Somaliland faces Gadabursi halka ayaad ka heli karaysaa in ay dilaalin iyo maqawadin yihiin kuwa mar walba laga horkeena salaadiinteena iyo cuqaasheena iyo odayaasheena sharafta badan leh kuwa mar walba laga horkeena marka hadalkayga anoon sii dheeraanin waxaan ku soo gunaanadayaa war dhalinyaroy horaan u yiri war dhalinyaroy ma tashana misweynu taahna ceeb ayaa inagu tahay in odayaasheena la afalgaadeeyo meetideeni awoowayaasheena u dhintay dhulka ee boqolaalka sano difaacaya in la afalgaadeeyo in magaca Gadabursi wax laga sheego annaga ay ceeb inagu tahay maanta magaca iyaga milgaha leh ee sharafta iyo qiimaha leh laguma hantaaqeen hadal xun laguma oran lahayn hadaynu dadnahay hadaynu dhalinyar jiranahay waxaynu ku meehnoonaa oo maalin walba nalagu maaweliyaa ururo aan jirin war isweydii udub yaa lahaa kulmiye yaa lahaa ucud yaa lahaa maxaad ka ahayd isweydii maanta nasiye iyo wadani iyo ummadda iyo wax la yiraahdo la wadaa isla iyagin baa wata SNM ayay ahaayeen shalay maantana waa isla SNM xaqsoor ninka wata waayo waa SNM waa ragii dadka iyaga laayay weeyaan oo haddana waliba aad saynta ugu ligigileysaan oo aad u taagantiin meel waliba waxa ashqaraarka keenay oo aan la yaabanahay marmarka qaarkood isweydiyo ummadani maxaa ka siya waxaan dhawaan daawaday reer Boorama magaalada Boorama shacabkeeda oo roog cas u dhigay Muuse Bixi oo aynu ognahay inuu dambiile yahay ninkii ka dambeeyay raggii mutacalimiintii iyo raggii
ganacsatada ahaa ee dila iyo inta u dhaxaysa Kalabayd raggii lagu xasuuqay ee ilaa maanta dhiigooga uu maqan yahay oo gawaaridooda ay maqan yihiin oo hantidooda ay maqan yihiin inuu yahay ninkii ka dambeeyay Muuse Biixi ninkii la Abu Timacad ninkii la yiraahdo Taani saddexdii nin ee maartay ee dhiiga ummadayada ku farxashay kaarbad casbad u dhigteen magaalada Boorama war waa idin sidee goormeed saxsantihiin goormeed saqaldantihiin ka sii daran waxaan arkay on daawaday ninkii la yiraahdo Xirsi oo geed dheer iyo geed gaaban u fariistay ama u fuulay sidoo uu oga aslayn lahaa ama oga sifayn lahaa inta yar marka horeba ka shaqaysanaysa Hargeysa iyo nawaaxigeeda ilaa dhulxaad ayuu banaanka dhigay biladaad siiseen bilado war waa sidee war maynu kala garanaynin war cadowga iyo nacabka maynu kala garanayn hadalkayga waxaan ku soo gunaanadayaa war walaalayaal nin la tumay tala joogtaa dhalinyartooy ayaan la hadlayaan dhalinyar baan la hadlayaa habla iyo wiilal bale waxba idin sheegin idin tari mayso wallahi inayna waxba idin tareenin jaamacadaha dhigataan beejiyaad qaadataan idinkoo gunnimo ku jira waa maxay gunnimada aanu micneeno gunnimada waa maxay dad baa waxyaabo kale kula cararo ummad Soomaaliyeed oo qiimo iyo sharaf leh kula carara ma aha gunnimadu sidaa gunnimadu waa ruuxa oo lahaanshada laga qaado bal isweydii lahaanshaha waxa aad leedahay maanta maxay tahay maqaamka aad leedahay hadaad nin dhalinyaro oo gadabuursi tahay maqaamka iyo sharafta aad leedahay maanta maxay tahay qofka wuxuu u dhintaa diintiisa qofka wuxuu u dhintaa wadaniyadiisa iyo calankiisa iyo ciidiisa qofka wuxuu u dhintaa midabkiisa qofka wuxuu u dhintaa qabiilkiisa waa maxay adoo nin dhalinyaro maanta waxa aad u dhimanayso ee aad naftaada u waayayso waa maxay isweydii waxa loo baahan yahay inaynu fahanno cidda aynu nahay iyo halkaynu joogno marka walaal haddii lahaanshihii lagaa qaaday oo aadan siyaasadaada xor u ahayn oo aadan dhaqaalaada xor u ahayn oo aadan dhaqankaaga xor u ahayn waa maxay xorriyadda aad sheeganayso gobonimada aad sheeganaysa maxay tahay ma jirto gobonimo ilaa lahaanshaheena aanu soo celinno ma sheegan karayno wax liyada inaan gobnahay ama aan gobonimo aan maanta ma sheegan karayno walaalayaal hadalkii anoo soo gunaanadaya run ahaantii dadkay dhageysanaya waxaan ka codsanayaa looma baahno inaynu calaacanno inaynu yuusno inaynu hoos u hadalno looma baahno ficil wadareed baa loo baahan yahay inaanu ficil la nimaadno kan dibadda joogana uu dibadda ficil ka bilaawa kan gudaha joogana uu gudaha ka bilaawa waayo waa rag asaageena oo dhalinyaro ah kuwa u soo hiliilaya ee u soo kala dheereynaya inay badahayna qaataan dhulkeena bay qaateen beeraha lahaa wajaale meeday gabiley meeday Kalabayd meeday caadi meeday agabar meeday dhulkii wax soo saarka lahaa oo dhan rag asaaga yaga qaatay oo maanta taagan gadabursi wax liya dhulkaan ma degano dib ayaanu ka soo sheegi doonaa maqaaladeena yani warbaahinta ayaanu soo gelin doonaa dadka saa u hadlaya ee nawaaxiga degan ciday ahaayeen asal ahaan iyo isirkooga waxay ahaayeen dib ayaanu ka soo sheegi doonaa wayna dhamaatay in wax la soo qariyo waa gacal waa seedi abtigu yahay walaashay baa dhashay no ma jirto waxaasi waxa dhulka iyaga lagu qaatay waa casabo walaashay baa dhashay seediye inan iyo seedigi baan nahay gabar iyo gayaankeed baan nahay oday iyo waxaan nahay wiil iyo sodogii baan nahay waa wax dhulkeena lagu qaatay waxaan hadalkay ku soo gunaanadayaa beelweynta Bahawar Muuse ee geesiyaasha Samaroon dhulkiina difaacda cadowga u eg idinkeedii egna iska ilaasha ee 20 waji leh wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh